Asalaamu calaykum. Soo dhawaada kusoo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan ku rajeynaa maalintaada inay kuu tahay maalin qurux badan insha Allah. Ilaahina ha kaaga dhigo. Dalka maanta aan kusoo qaadanayna waa Ukraine ama Ukraania. Ayaan kusoo qaadan doonaa muuqaalkan. Xagee dhacdaa, maxay caan ku tahay, iyo xuduudo la leedahay iyo waxyaalo kale oo badan ayaan kaga hadli doonaa. Haddii ay tahay markii kuugu horeysa oo soo booqataa subscribe noo saar gambalaalkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan. Haddii familka ka tirsan tahayna like noo saar, asxaabtada noo sii share gareeyo. Soo dhawaada. Dalkan waa dal dhaca Yurub. Wuxuu xuduudo la leeyahay wadamada sida Russia, Belarus, Poland, Slovakia iyo Hungary ayuu xuduudo la leeyahay. Dalkan 91kii ama 1991 ayuu aasaasmay, wuxuuna ka aasaasmay burburkii ku yimid midowgii Sofiyeeti. Wuxuu ahaa xubin ka tirsan midowgii Sofiyeeti ayuu ahaa. Dalkan waa dalka saddexaad ee dunida ugu luqadda qurxoon marka laga soo tago Faransa. Adduunka waxaanu tartan loo qaban malahan hablaha kuwa ugu quruxda badan waxaa la yiraahdaa luqadaha ayaa ugu quruxda badan. Wixii oo dhan adduunka wuxuu noqdaa tartan. Marka wadankan waxaa la leeyahay waa wadanka saddexaad ee adduunka ugu luqadda qurxoon markii laga soo tago Faransa. Faransa waxaa la yiraahdaa waa luqadda wadanka Faransiiska looga hadlo. Waxaa la yiraahdaa waxay yiraahdeen waa luqadda adduunka ugu quruxda badan. Marka wadankan waxay siiyeen kaalinta saddexaad ee luqadda ugu qurxoon adduunka ayay siiyeen. UNESCO wadankan waxay dhahday waa wadanka sideedaad ee ugu wanaagsan xagga dalxiiska ayay ku tilmaantay inuu yahay. Inta badan wadanka dalkan dadka u dhashay waxaa la yiraahdaa wadad mutacalimiin ah, dad wada educated ah, wax wada barteen. Waxayna kaalinta afraad kaga jiraan dadka adduunka ee wax barta ay kaga jiraan. Waxaa la yiraahdaa waa dad wax soo saar leh, mutacalimiin ah, wax yaqaano. Wadankan waxaa lagu sheegaa inuu leeyahay diyaaradda ugu weyn adduunka oo la farsameeyay xilligii midowgii Sofiyeeti uu dhisnaa. Walow hadirtaan loo adeegsado in xamuulkii waxyaalaha waaweyn lagu qaado. Wadankan waxaa la yiraahdaa waa xadaaradooyinka ugu horeeya caalamka ayuu ka mid yahay. Xataa waxaa la yiraahdaa xadaaradii Greek ay lahaayeen ama Yunaanka uu ka horeeyo oo adi ilaa ay 3000 oo sano uu ka horeeyo ayaa la yiraahdaa. Saas inay tahay u maleynaa ma hubi. Marka haddii aad ogtahay qaybta commentiga noogu reeb. Sa u maleynayo waaye walow aan hubin waxa la ilaa ay 3000 oo sano ayuu kaga horeeyay xadaaradii Greek ay lahaayeen ayuu ka horeeyay. Waxaa lagu sheegaa inuu yahay wadanka ugu horeeya adduunka ee dastuur sameystay inuu yahay 1710kii. Dastuurka ugu horeeya adduunka waa kitaabka Quraanka. Laakiin ayaga say sheeganayaan waxay dhaheen waa dastuurka ugu horeeya caalamka la sameeyay 1710kii ayaa la qoray ay leeyihiin. Wadankan wuxuu leeyahay wax soo saarka xagga warshadaha ayuu ka horeeyaa. Wuxuu soo saaraa diyaaradaha, doomaha, maraakiibta iyo gawaarida iyo dhammaan waxyaalaha muxarakaadka oo ah diyaaradaha. Dhammaan waxyaalahaas ayuu soo saaraa. Waa wadan ku horumarsan xagga warshadaha. Siyaasad ahaan wadankan siyaasadiisa way qowda walow dhulkiisa qaar aynan u fududeyn dadka inay ku safraan dhul ahaan aysan u fududeyn. Hadirtaan laakiin waxaa jirta Soomaali badan oo hadirtaan waxbarasho u aadayaan oo kale. Xagga waxbarashada uu ku fiican yahay wadankan ilaa xad. Waxbarashadiisa way fiican tahay. Oo hadda waxaa jirta Soomaali badan oo hadirtaan u aadeen inay jaamacada baash iyo kasoo sameeyaan digriye kasoo qaataan u aadeen jiraan. Wadankan saan hore usoo sheegnay wuxuu horumar badan ka sameeyay xagga warshadaha, wax soo saarka. Sidoo kale wuxuu soo saaraa sawaariiqda, gantaalada soo saaraa, hubka ayuu soo saaraa. Waxaana la yiraahdaa wadankan walow uusan lahayn hubka nuclear-ka haddana waa ciidan ahaan wadan aad u dhisan oo wadamada Yurub wuxuu ku jiraa ugu xooga badan xagga ciidankiisa uu dhisan yahay. Marka hore uu lahaa laakiin heshiisyo uu galay iyo ayaa keentay inuu hubkiisa nuclear-ka burburiyo. Walow uusan dhamaystirnayn uu burburiyo ayaa keentay. Laakiin waa wadan ahaan wadamada Yurub ugu awood badan xagga ciidanka ayuu ku jiraa. dumarkiisa waxaa la lahaa dumarka ugu quruxda badan qaaradda Yurub. Taas ayaa lagu tilmaamaa inay yihiin walow ay dhahan sometimes dumarka ugu quruxda badan caalamka ay yihiin dumarka Ukraine.
oo sanado badan waxaa jirtay koobka quruxda ay qaadayeen reer Ukraine gabdhahooda. Wadankan waxaa la lahaa dadka dhinta ayaa ka badan dadka dhasho, oo maxaa la yiraahdaa Yurub sida u badan. Yurub waxay u badan tahay in waayeelada ay ku badan yihiin, dadka cajiska ay ku badan yihiin, oo dadka dhalaha ayana kale ay yar yihiin, oo qof walba uu laba kasto guursata ay hal qof ama laba qof bedel lahaayeen is ay dhalaan. Marka wadankan asagana Yurubta kale waxa jirtaan liinkooda raaca leeyahay, oo dadka dhinta ay ka badan dadka dhasha ay ka badan yihiin la yiraahdaa. Wadankan waxaa la lahaa 20% dumarka wadankan u dhasheen tir ah way ka badan yihiin ragga, oo 20% waxaa badan la yiraahdaa dumarka. Marka taasna waxay keenaysaa in online ay galaan oo xagga ay rag ka raadiyaan kadibna ay guursadaan oo meeshii ku nool codba meeshaas u tagaan. Wadankan waxaa la lahaa dadkiisa waa dad aad u badan, dadkiisa dad aad u badan waa la lahaa, oo marka laga soo tago wadanka oo Ukraine ay u dhasheen. Wadanka labaad adduunka ay ugu badan jaaliyad ahaan ay ku nool yihiin waa dalka Russia, oo jaaliyad ahaan wadanka labaad adduunka ugu badan yahay marka laga reebo wadankooda koowaad. Wadanka labaad adduunka ugu badan yihiin waxaa la lahaa waa dalka wadanka saddexaad wadanka saddexaad adduunka ugu badan yihiin ee maanta ay ku nool yihiin jaaliyad ahaan waa wadanka Canada. Dad ahaan population-kooda waa population aad u badan, walow hadda wadan ahaan lagu tiriyo inay yihiin wadamada faqriga ah lagu tiriyo. oo ma ahan in Yurub maanta ay hanti leeyihiin ma ahan magacay hayaan, laakiin Ukraine ahaan maanta waxaa leeyahay waa wadamada soo koraya ayuu ku jiraa, oo dhaqaale saas ma lahan. Asagaba dadkiisa Yurubta kale u shaqo doontaan maanta ay waxbarashadaan ay shaqo ahaan u raadiyeen. Waxbarashadan ay wadan ahaan ugu fiican yahay, laakiin wadanka wuxuu yahay wadan faqri ah, jaanisyo badan oo shaqo aan lahaynin. Qofkii inuu asaga shaqo abuur sameeyo malahan qofkii haduu degree soo qaato oo kale oo jaamacadii soo graduate gareeyo ma helayo jaanis shaqo oo saas u sii badan, maadaama wadankii dowlad ahaan iyo bulsho ahaan bay yihiin dad sabool ah. Maadaama ay yihiin qofkii wadanku dhashay wuxuu ku qasban yahay inuu Yurubta kale aadaasi uu iyo maxaa la lahaa iyo wadamadaas Latin America uu aadaasi uu shaqo raadis uu ahaado. saas ayaa la yiraahdaa inta badan waa dal sabool ah. Marka insha Allah muuqaalka intaan ayaan kusoo gabagabeeyna. Hadii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelka videogana gambalel noo hadii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe noo saar gambalelkan furo si video cusub ku soo gaaraan. Haddii hore aan joogtan like noo saar asxaabtadan u sii share gareen. Soo dhawaada late time waaye xilligan hadirtan codka duubayo, marka ka raali naqda haddii waxyaalaha qaar qarad ah ay dhacaan oo kale ka raali naqda. Late time waaye hadirtan xilligan duuba walo maalinta aan jaanis fiican aan u heen aan ku duubo. Marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa insha Allah inay idin qanciyo. Waxyaalaha kale aad jeceshihiin inaan idin soo diyaariyana qaybta comment-iga noogu reeb insha Allah. Walo maalmahan mashquulka badan yahay, haddana insha Allah maar uun fiiri doonaa qaybta comment-iga waxyaalaha fikirkii waxyaalaha jeceshiin noogu reeba si annagana aan u soo diyaarin insha Allah. Soo dhawaada.